ay ka soo kala jeedaan wasiirada la magacaabay iyo kuwa xilka laga qaaday. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa xil ka qaaday 3 ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya iyadoo 3 kale oo cusub lagu bedelay wasiiradaasi. Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Injineer Cabdiraxmaan Yariiso oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in wasiirada arrimaha dibadda, arrimaha gudaha iyo ganacsiga iyo warshadaha looga qaaday xilalkoodii wareegto ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Haddaba waxaan halkan ku soo gudbinaynaa beelaha ay ka soo kala jeedaan wasiirada xilka laga qaaday iyo kuwa la magacaabay. Number 1 Mudane Yuusuf Garaad Cumar wasiirkii wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga oo ah habar gidirceer waxaa booskiisa lagu bedelay Mudane Cabdi Sabriye oo u dhashay isla beesha habar gidirceer habaraaji kaasoo loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha. 1 Marwo Khadra Axmed Ducaale wasiirkii ganacsiga iyo warshadaha. Isaaq habar jeclo waxaa lagu bedelay Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo u dhashay isla Isaaq beesha habar jeclo. Number 2 Mudane Cabdi Faarax Saciid Juxa wasiirkii arrimaha gudaha federaal iyo dib u heshiisiinta oo ka soo jeeda beesha Majeerteen waxaa lagu bedelay Danjira Axmed Ciise Cawad oo isla isagana ka soo jeeda beesha Majeerteen waxaana loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda. Booska wasiirka arrimaha gudaha ayaa mar kale lagu soo celiyay Hawiye gaar ahaan habar gidir. Dhanka kale Majeerteen ayaa loo weeciyay wasiirka arrimaha dibadda halka booska 3aad isla beesha Isaaq lagu celiyay. Arinta waxay imanaysaa iyadoo wali ay banaan yihiin boosaskii ay baneeyeen 2 ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya